maamulka deegaanka Gubadley ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu howlo dayactir iyo dib u dhis xoogan ka bilaabay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee dhexmara deegaanka Gubadley ee gobolka Banaadir. Howlahan lagu furayo wadooyinka uu xiray geed yahuudka iyo qashinka ayaa waxa ka qayb qaadanaya gaadiidka loogu talagalay in lagu qaado qashinka iyo katrabiiro lagu furayo ama dib looga hagaajinayo wadooyinka si ay u fududaato isu socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana ay u soo laabato bilicda iyo nadaafadda deegaanka Gubadley ayaa waxa soconaya dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyo wadooyinka. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahiyaha loo qabay wadooyinkan iyagoo soo dhaweeyay dadaalada maamulka deegaanka Gubadley uu ku furayo wadooyinka. anagoo ku hadlaya bulshada codkeeda waxa waaye maamulka ayaan la wadaagnay in ay waxa waaye wadadan ay wax ka qabtaan aad iyo aadayna waxa waaye nooga aqbaleen ayaguna waxa waaye waa nagu dhiirigeliyeen bulshaduna aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay wado hadii ilaahay yiraahna wadadan leer naqama doontee sida maamulku noo sheegay wadooyin waliba oo ku yaala deegaanka Gubadley ayaa insha Allah hadii alla yiraaho hawshan laga qaban doonaa. maanta waxaan joognaa deegaanka Gubadley qaasatan qaybta gadaalood oo aan joognaa mid kale wadada aan aad ugu dhib ka qabnay aan ka codsanay maamulka Gubadley in ay noo dhisaan codsiga aan ka codsanay way naga aqbaleen si degdeg ah waliba naga aqbaleen haddana waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa degmada dhan inuu noo wada saaro laami. gudoomiyaha guddiga dib u dayactirka wadooyinka ee deegaanka Gubadley gobolka Banaadir Maxamuud Yuusuf Xurshow ayaa ka warbixiyay muhiimadda wadooyinkan ay u leeyihiin bulshada. wado aan maartay baahi badan u qabnay ka codsanay gudoomiyaha deegaanka Abdullaahi Nuur Kaalibey maadaama codsigayna uu ka jawaabay waan u mahad celinaynaa 100% shaqaduna waxay ugu socotaa sidii loogu talagalay waana isxilqaan deegaanka isxilqaamay gudoomiyaha maartay xibinta ugu weyn ka qaatay oo maartay u istaagay inuu wadadan dhiso waa ugu mahad celinaynaa deegaanka dhamaan waa ugu mahad celinaynaa waana wada muhiim halbowlaha la mari waayay bacaad marka adeega bulshada ayaa maartay ka xirmay wadadan. gudoomiyaha deegaanka Gubadley ee gobolka Banaadir Abdullaahi Nuur Kaalibey ayaa sheegay in maamulka uu qayb weyn ka qaadanayo horumarinta deegaanka isagoo ku booriyay shacabka ku nool deegaanka Gubadley inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanka. saad u jeedin maantay waxaas bilowday shaqadii dib u dhiska oo deegaanka dhinaca wadooyinka shaqada aad u jeedina socoto waxaan rabnaa haddana maamulka Gubadley in isbedel wanaagsan oo degdeg ah inaan ka sameeyno deegaanka wado walba oo degmada Gubadley ku taalne waxaan saanaan u dhisi doonaa waa diyaari doonaa guddigii wadooyinkaas inay dhisaan loogu talagalana waa magacawnay waana diyaarinay. Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.